السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا لها أنكو كولا لوني برتا يوتيوبك waxaan idinka codsanayaa marka hore in aad muuqaalka like saartaan barta youtube-kana aad subscribe saartaan dadka walaalahaagana aad la wadaagto insha Allah. bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama amaa bacd. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا ليال وحويا gaar ahaan aan doonayaa inaan ka hadlo mushkilaadka ka socda ama shaqaqada ka socota dhulalka Soomaaliyeed ee dega dadka Soomaalida. guud ahaan dhulalkaasi waxaa ka socda dagaal weyn. meel walba oo Soomaali degta oo Ilaahay u qoray inay degaan dagaal baa ka socda. haba ugu darnaadeen dhanka laascaanood ama waqooyiga. waxaad dirirayo waa laba qof oo Soomaaliyeed, waa laba koox oo Soomaaliyeed oo ah muslimiin. waxa islaaynayo waa dad muslimiin. Ilaahay subxaanahu watacaalana ma banaynin in laba qof muslim ah isdilaan. hadday isdilaan labadoodiba waa ahlu naar. rasuul sal slam wuxuu sheegay laba muslim hadday isdilaan oo dagaalamaan labadoodu waxay galayaan ahlu naar. sababtoo ah kan wuxuu ku dadaalayaa inuu dilo walaalkiisa, sidoo kale kan kalena wuxuu ku dadaalayaa inuu dilo walaalkiisa. marka labadaba kii la dilay iyo kii wax dilayba waa ahlu naar weeye rasuulka inuu tilmaamay. marka walaalayaal waxaan leeyahay waan ka xumahay dagaalada socdaan, gaar ahaan laascaanood. labada koox ee meesha ku dagaalamayaan waa laba qof oo Soomaaliyeed. wayna dhibaysaa labadooda inay dhintaan. waa ka xunnahay. waxa lagu faano oo lagu farxo lagu dhiirigeliyo ma ahan. waxa weeyaan waxaan leenahay haddaanu nahay dhalinyarta ee ducaada, waxaan leenahay ha lagu xaliyo xal kale, hala joojiyo qorigan ama xabadan dhacayso la ridayo, ha lagu bedelo wada tashi iyo fariisi in la fariisto oo xal kale la keeno. maamulada labada dhinacba waxaan leeyahay in ay xal kale keenaan oo xalkan ay bedelaan xal kale roon. dhiigana ay joojiyaan, dhiig baxan socdo, naftaan la gooynayana ay joojiyaan, ay ku joojiyaan xal kale keenaan. sababtoo ah waxa la isugu haysto wax kale ma ahan maamulkayga soo raac iyo maamulkayga waan ka go-ay ma rabo. hadday sidaa jirto waxaa laga rabaa dadka labada dhinac maamulayaan, labada dhinac dadka hogaaminayaan inay isku imaadaan, arrin kale ay keenaan, arrintan arrin ka duwan ay keenaan. qorigan waxa weeyaan dagaalku wiil baa ku dhintay wiilku ma dhasho, wiil baa ku dhinto wiilku ma dhasho. dad badan baa baaba-ay, labada dhinac dad baa ka dhintay. ciidan hadday noqoto weliba dhankaani lasoo weeraray ama dhankaani laascaanood askar iska daaye shicib ayaa ku dhinteen.
xaggana ciidankii baa ku dhintay. marka faa'iido ma ahan inaad islaysaan oo isdhamaysaan idinkoo heli kara xal kale. waxaan leeyahay dadkaani waa dadkeeni, waxa isdilaan waa dadkeena, waa Soomaaliyeed, dad Soomaali weeyaan. wax lagu farxano dad qaar baa ku farxa arkaysaa, dad qaar baa qabiil ku taageera oo isagana laga yaabo meel kale inuu joogo. marka walaalayaal ilaahay aan ka baqno. ilaahay wuxuu leeyahay haddii ay isdiriraan laba kooxood oo mu'miniin ah oo mid ka mid ah yacni xalkeena xalka waa in yacni aan wada qaadano. ma fiicna in yacni aan dhammaanteena aan yacni qorsheenu noqdo in lisdilo. dagaal waa tii hadda Soomaali ay ku burburtay, ilaa haddana ay nabad aysan ku noqonin, ilaa haddana dilkii socdo. marka walaalayaal dagaal faa'iido ma lahan ee khasaare ayuu leeyahay. nabaduna faa'iiday leedahay, khasaare ma laha. xalkuna shayga la yiraahdo xalku wax buu keenaa, waxbaa laisku afgartaa. marka walaalayaal insha allah waxaan khaldayna nafi shaydaan bay ka ahaadeen, waxaan saxay fa min allah. hada billahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.